Bismillahi Raxmaani Raxiim. Wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Galabta waxaanu wadaagi doonaa sheeko yaro kooban. Waxaa la yidhi islaan inan keliya lahayd ayaa inankii ka dhintay. Islaantaasi maalin walba waxay booqataa xabaasha inankeeda, way ka dul ooydaa, ka dul calaacashaa, kadibna way u soo ducaysaa, way soo noqotaa. Dharaar walba waxaa u caado ah inay qabriga inankeeda booqato. Nin tuuga oo xeel badan ayaa arkay. Dharaartii dambe xabaashii uga sii horreeyay. Islaantii oo ka tuuraysaa soo gashay xilligii ay iman jirtay. Markuu arkay iyadoo soo dhow ayuu cirkaa, markaasuu dabeeta gacmaha kor u taagay. Hadlayaa markaa isla hadlaya. Islaantii baa ku tiri, maxaa kugu dhacay samada la eegaysaa ayaad weliba la tiiraanyihiisantahay? Wuxuu yidhi, samadaan ka soo dhacay oo jannadaan ka imi. Intaa markay maqashay ayay ku tiri, inankaygii jannada ma ku jiray? Si murugo leh ayuu eego markaasuu yidhi, inankaagii albaabka jannaduu taagnaa, dayn badanna waa lagu leeyahay, dayntaasaa u diiday inuu jannada galo. Dayntu maxay ahayd lagu leeyahay? Dayn intaa iyo intaasa. Ina mari bay tiri, gurigii bay geyso, lacagtii bay u soo saarto, lacagtii buu jeebka ku shubto, waa baxa. Ninkeedii baa yimi, say ku tiri, war wanaagsan baan ku hayaa, inankeena dayn baa lagu lahaayo hadduu jannada gelaya. Nacas baa tahay, inankeenu dhimaye, aakhirana cid ka soo warantaa ma jiro. Waa nin baa yimi oo halkaa maray, farasuu lahaa uu ka daba halabsaday. Ninkii oo sii socdaa wuxuu arkay dee faraskan kusoo raad jooga iyo ninkan go'iisa maaragtay dabayshu ay sare u kicisay, faraskiisa uu leexada kicinayo. Wuxuu galay nin meel wax lagu ridqa haysta. Wuxuu nin aanan garanayn baa igu raad jooga, iniyo maryaha inuu isu bedelo suu ii garan waayo, adiguna geedkan ka dambeeya meesha fuul. Sidii lagula taliyay buu ninkii yeelay oo dharkii buu u bedelayo. Markuu ninkii soo galay wuxuu war caynkaas oo tuugan riyay maarsan, markaasuu war waa ka halkan saaran farta ugu fiiqay. Markuu arkay ninkii buu go'i u sitay halkan dhigtay, faraskiina halkan ku qoofashay. Dabeeto wuxuu si ninka kala soo degay meesha lacagtaada ka cisho. Tuugii markuu arkay ninkii oo geedkii haabanaya buu go'i la booday, faraskiina uu ciribta ku dhufto u baxsaday. Ninkii baa ogaaday inuu dhacan yahay. Islaantii uu soo canaantay ninku faras la'aan iyo gool la'aan dee kulama noqon karo, war maxaad yeeshay? Iska soo noqdo. Markaasay ku tiri, war go'aagii iyo faraskii aad wadatay mee? Suuliyo waxaan xaqiiqsaday ninkan inuu jannada ka yimi, waanu noqonayay. Dabeeta inankii aanu jeclayn ayaan waxaan la doonay inuu faraska iyo go'aba uu inooga geeyo oo hadiyad waalidkii u soo garteen inay u noqdaan. Xeel baa lagu xoogsada.